salaan guud dalkayga maansadu halkuu daaran yahay iyo doodaydu waxay tahay dumar waa halbowlaha dhiigga daabulayo waa dal iyo dadkiisaba cidda laga dhex daawado haddaan la isdafirahayn ragow lana dambaabayn maydinkaana duudsiin oo nala dagaalamin maydinkaana damac jabin oo darajadii iyo halkii aanu doonnaba diintu may bannayn iyo dumar baad ka tahay iyo dembi weeye odhanayn habluhu ma sineetaan maanta ka hadlayna waa abwaanada caanka ah ee magaca iyo muuqa iyo quruxda isku darsatay waa Xamdahiil Habloode. Xamdahiil Hablood waa gabadh Soomaaliyeed oo reer Hargeysa taasi oo waqti badan ku soo qaadatay amba soo galisay sida ay uga midhalin lahayd hadafkeeda ahaa inay marun noqoto abwaanimadu inkastoo ay tahay wax Ilaahay ku siiyo oo aysan ahayn wax la iska keena amba la iska doodoono haddana waxay u baahan tahay inaad hesho dhiiranaan iyo cid ku garab istaagta sidoo kale waxay u baahan tahay inaad hesho qalbi furnaasho iyo codkarnimo taasi oo dadka badan ku soo jiidanaysa hana noqonayso qof isu kalsoon 100% markaas taas Xamda iyaan kaga hadlaynaa saaka xaaladeeda iyo siyaabaha ay ku soo shacbaxday Xamdahiil Hablood waxay soo shacbaxday sanadihii la soo dhaafay 2018 ilaa 19 iyadii oo soo qaadatay ereyo aad u macaan kaasoo kaga hadlaysa hablaha ay ugu heelinayso balse ay ku dibac jabinaysa rag dhinacooda kale rag badan oo dabacsan inaysan dumarku wax badan aysan soo kordhinayn amba aaminsan inay dumarku ahayn kuwii loo baahnaa oo bahalka ay ragu gaadhaan marnaba aysan gaari karin balse Xamdahiil Hablood ayaa gaashaanka u darurtay oo ku sheegtay inay kuwaasi yihiin kuwa xun oonan ahayn kuwii loo baahnaa amba dumarka garab istaagi jiray sidoo kale iyadoo Soomaaliyeed iyo Soodaanteeda ku bildhaaminaysa inay hooyooyinka dumarku yihiin kuwii iyaga dhalay heerkana soo gaarsiiyay kana soo tirayay sindada iyo wax waliba markii ay yaraayeen dhabarkana ku soo qaaday oo aysan marnaba hablu ahayn kuwa la oran karo heerkan ma gaari kartaan lana dayici karo Xamda oo ah gabadh markasta u taagan xuquuqda dumarka iyo sida ay uga midhalin lahayd hadafka ay leeyihiin dumarku ay ka midaysan yihiin kaasi oo ah inay mar uun gaadhaan heerka ragga walow aysan diiniyan u banay waxyaalo badan oo kamid ah inay dumarku qabtaan sida ragga aba ay sameeyaan dhaqamada ragga balse waqtiyadan dambe marka adeegto dunida amba meel kasta oo kamid ah ay xitaa soo gaadhay Soomaalida waxaad arkaysaa gabadh Soomaaliyeed oo u tartamaysa kursiga iyadii oo madax qaawan macsan iska tuurtay shalmadii iyo dhaqankii hiddihii Ilaahay ugu talagalay balse Xamda taa way ka duwan tahay waxay xidhan tahay mar walba xijaabkeeda kaasi oo si qurux badan ugu soo baxayso Ilaahayna had oranayso waa uu sameeyay inay sida xijaab ku xidhato waa Xamdahiil Hablood ayna koona faaninaynin hanan wax ceebana ka sheegaynin gabadhan amba hoboladan soo shacbaxday hablaha Soomaaliyeed waxay hoodan Xamda markasta baan dhaahday hay u soo taagan tahay amba u soo jeedaa inay hablaha Soomaaliyeed hormar gaarsiiso balse tolo hablaha Soomaaliyeed iyagu ma ogyihiin tabcan ha way ogyihiinoo marka soo eray Suudaan soo tiriso Xamdahiil Hablood iyaguna waxay noqonayaan kuwa garab taagan oo si weyn uga falceliya oo ku taageersan ereyadeeda waqtiyo badan BBC ayaa wareysatay idaacadaha waaweyn telefishinada caalamiga waa Xamdahiil Hablood Xamda waxa ay noqotay gabadh si weyn uga soo dhaxbaxday deegaamada Soomaalida inkastoo ay jiraan hablo badan oo iyagu isku magacaaba abwaanin aba inay leeyihiin hal abuurkaas oo ereyo Soodaaneed balse ma jiro wali wax gaadhay amba heerka ay taagan tahay soo gaadhay amba la tartami kara oo faceeda iyo heesaheeda oo kala qaadi kara oo faceeda gabadhan waxa isku taasatay jiifiyo joxorad iyo sidoo kale codkarnimo qurux Ilaahay u siiyay isteelka iyo sidoo kale inay leedahay hanka ka weyn oo inay heeso kaliya tiriso amba hay qaado Suudaan oo kaliya hayne hay rabto inay sida aad ka dhex muuqanaysa amba aad ka dhex qarsan karto jaaheeda amba areeyadeeda qiimaha badan inay gaadho heerka ugu sareeya waa gabadh dacdo waalidiinteeda aad ku arkaysaan bartanba waa gabadha asturan ee xubnihii jidhkeedii oo waxay qarisay meelihii loogu talagalay la qariyo oo idil walow ay hablaha Soomaalida aan la oran karin waqti xaadirkan inkastoo la taagan yahay waqtigii la yiri ninka diinta haysta waa nin haysta waqtigan oo kale haysta waa nin faraha ku haysta nabeel dab oo kale marka inkastoo haddana waqti xaadirkan hay aaladan elektarooniga ah ee internetku dadka oo dhan waalayso oo ka dhigayso qof walba wuxuu ahaa iyo dhaqankiisa ma hay mid kale oo waxa soo baxay aalado waaweyn sida YouTube, Facebook iyo Instagram kuwaasi oo inta badan lagu soo bandhigo marka laga reebo YouTube labada kale lagu soo bandhigo inay yihiin
amba inaad xubnahaaga bar ka mida kusoo muujiso taasna beddelkeeda hoodo xamdahan idhaahdee waxay ay ka dhigtay mid hana suurtagal ahayn iyada oo dhammaanba qarasay xubnaheeda markastana sawir galaysana kusoo galaysa xijaabka iyo indha shareerka ha uu ilaahay ugu talagalay inay xidhaan dumarku balse xamda inanka oo sii wadayna erayadeeda iyo soodaanteeda waxaan sii dhegaysanaynaa saaxiibayaal soodaanteeda xamda waxaan leeyahay dumarka oo dhan garab istaaga saaxiib haddaad muuqaalkan ka heshana leeggaree soo kala sii sheergaree barteena youtube-ka cabdalla deeqsana samiskaraabka dhac ku sii aad baad u mahadsan tahay facebook pagekeena soo follow garwa cabdalla xuseeni sugaya anigana waxay la tahay tiraab iga sugi maysaan tix baa iga sugaysaan dad allow salaan guud deelkayga maansadu halkuu daaran yahay iyo doodaydu waxay tahay dumar waa halbowlaha dhiigga daabulaayo waa dal iyo dadkiisaba cidda laga dhex daawado haddaan la isdafirahayn